maalin wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibna waa markaan wararkii warbixinada ugu xiisaha xamaasada badnaadaan oo kale Israa'iil midig ka daawajirtay waxaa kamid ah qaramada Midobay oo shaki geliyay sharciyada xariga muqtaar Roobow oo Mansur ururka Taliban oo weerar dhimasho geystay ku qaaday ciidamada Afghanistan dawladda Turkiga oo magacaada danjiraha gaarka ah ee wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland qodobadaas iyo qodobo kale ay ku daawan doontaan barnaamijkeena hadduu abedmo subscribe sar gambalelka kana furo si aad u hesho warar wixii ku dhaafay ama waxa minidka dhacaya saraakiisha dalka Afghanistan waxay sheegeen in ugu yaraan 20 kamid ah ciidamada ammaanka dalkaasi ay ku dhinteen weerar ay soo qaadeen kooxda Taliban saraakiisha waxay sidoo kale sheegeen in weerarka oo bilaabmay isniintii qaatayna saacado dhowr ah uu ka dhacay gobolka Roobow in ka badan 20 kamid ah booliska Afghanistan ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi ciidamada ku sugan saldhigga ku yaala degmada Sayid ee ilaaliya ceelasha shidaalka ee gobolkaasi mid kamid ah saraakiisha ku sugan gobolkaasi waxay sheegeen in ururka Taliban ay wili gacanta ku hayaan laba kamid ah saldhigyada aagaasi halka goobo kalena ay iskaga baxeen markii ay ka qaateen hub madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa 10 maalmood ka hor soo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga si looga hortago horumarada dagaal ee garanayaan Taliban danjirihii hore ee dawladda Turkiga u joogay Soomaaliya ambassador Olganbeger ayaa loo sheegay in loo magacaabay ergeyga qaaska ee dawladda Turkiga u qaabilsan wada hadlista dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland qoraal uu danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Turkiga ambassador Jaamac Maxamed uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu xaqiijiyay in magacaabistaasi isaga oo sheegay in ambassador Olganbeger uu kaalin muhiim ah ka qaatay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga danjiraha waxa kale uu qoraalkiisa ku sheegay inuu ergeyga qaaska ee Turkiga u fududeyn doono wada xoojinta labada dhinaca kale Somaliland wili kama hadlin magacaabistaasi iyadoo uu wada xaajoodkaasi oo soo socday ilaa iyo sanadii 2012 uu hakad galay kadib markii ay labada dhinac ka gaabsadeen wada xaajoodkaasi Somaliland waxay dadaal diblomaasiya ugu jiraan inay caalamka ka helaan ictiraaf balse ma jirto dawlad u aqoonsatay Somaliland dalka madax banaan Soomaaliya wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada Midobay u qaabilsan Soomaaliya Nijlos Haysom ayaa dawladda federaalka ka dalbaday in ay sharaxaad ka bixiso wixii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta koonfur galbeed laga bilaabo bishii 13 ilaa iyo 15 December aynu soo dhaafnay Nijlos Haysom oo warqad u qoray wasiirka amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islu ayaa ka hadlay saameynta ka dhalan karta wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya ay taageerto qaramada Midobay ee ku lug lahaayeen xariga muqtaar Roobow oo Mansur 13 bishii December iyo dhimashada 15 qof oo rayid ah iyo sidoo kale 2 qof oo rayid ah dhaawacooda arinta kale ee lagu xusay warqadaasi ayaa ah xariga 300 oo qof oo la sheegay in ay ku lug lahaayeen dibadbaxyo ka dhashay xarigii muqtaar Roobow oo Mansur oo qaarkood loo sheegay inay xabsiga lagu hayay in ka badan 48 saacadood balse markii dambe la sii daayay intii u dhaxaysay bishii December 18 ilaa iyo 22